madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Ruushka ahna ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi haddana ah gudoomiye ku-xigeenka golaha amniga qaranka waddanka Ruushka Dmitry Medvedev ayaa digniin culus oo argagax gelisay caalamka soo saaray kadib markii uu sheegay in ay tahay ama la joogo waqtigii ay dunida walwal iyo walbahaar xoogan ku noolaa lahayd maadaama uu sheegay heshiiskii kala dhaxeeyay dowladda Mareykanka ee ciwaankiisu ahaa New START oo ku saabsanaa hubka nuclearka in la xadido oo ay kala saxiixdeen labada dowladood 2010 in uu dhacayo waxa uuna sheegay Dmitry in ay tani ka dhigan tahay in aan weli jirin wax heshiiska ku saabsan in la cusboonaysiiyo oo dhexmaray labada dowladood taa oo uu sheegay in ay adduunka ku beerayso walwal iyo walbahaar xoogan ayna noqonayso markii ugu horeysay tan iyo 70meeyadii ay xor u noqon doonaan labada dowladood in ay xadigii ay doonaan hubka nuclear ka samaystaan misna isticmaalaan wuxuuna intaa ku daray in uusan dhahaynin waxa qarxaya dagaal nuclear balse ay tahay in ay labada wadanba u furan yihiin in ay samaystaan nooc kasta oo hubka nuclearka ah tiradii ay doonaan sidoo kalena ay ku dagaalami karaan hubka nuclearka maadaama aysan jirin heshiis xadidayo habka iyo isticmaalka nuclearka heshiiskan ay gaareen labada dowladood ee Mareykanka iyo Ruushka 2010 ee ciwaankiisu ahaa New START ayaa labada wadanba ku xadidayay in ay samaysan karaan gantaalada nuclearka ilaa iyo 1550 madax midkiiba taa oo ahayd in labada wadan wax tirada ka baxsan aysan samaysan karin hayeeshee 5 Febraayo ee sanadkan oo uu heshiiskan ku egahay ayaa waxa ay ka dhigan tahay in labada wadan aysan jirin xad xadidaysa oo hubka nuclearka ku saabsan isticmaalkiisa iyo samaysashadiisaba arrintan ku saabsan in uu soo dhamaaday heshiiskii xadidayay hubka nuclearka ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka ayaa dunida walwal iyo walbahaar ku beerayso maadaama labadan wadan ee Ruushka iyo Mareykanka ay yihiin wadamada ugu badan ee haysta madaxyada hubka wax kumaada ee nuclearka halka warka kiisa ugu doorkaroon oo idinkaga imaanayay waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine